warar iskhilaafsan ayaa daawadayaal ka soo baxaya goorta la saxiixaya heshiiska horudhaca u dhexeeya dowladda dalka Iiraan iyo dhigeeda Mareykanka. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in maalinta Axadda ah ee saacadaha yaro ay ka dhiman yihiin ee nagu soo food leh in la saxiixi doono, meesha Iiraan warkaas mid ka duwan ay soo saartay. Heshiiskan hadduu hirgalo yaa guulaysanaya ayaa aad iyo aad loo hadal hayaa oo saxaafadda caalamka gaar ahaan barta Twitter-ka aad u haysata. Waynu eegi doonaa haddii alla yiraahdo. Sidoo kalena wadamada khaliijka ayaa u kala tartamaya siday Iiraan ula shaqayn lahaayeen, xiriir caafimaad qabanaya oo la yeelan lahaayeen. Qaarkoodna la sheegay in ay markaa dhaqaale gaarsiiyeen, kuwo kalena xaatan dhabaha ay ku sii jiraan oo balaayiin lacaga Iiraan ay siinayaan si ay markaa ammaankooda ay u sugaan kadib markii Iiraan ay ka soo badbaaday labadii weerar ee cuslaa ee sanadkii hore iyo sanadkan labadaba lagu qaaday ee Israa'iil iyo Mareykanku ay duqeeyeen iyagoo wada xaajood kula jira. Taariikhdu daawadayaal waa 13 bisha 6 sanadka 2026. waa barnaamijkeennii saddexaatan iyo saakiintu waagu barya meel kastoo dunida ka joogtaan. Khiyaarey qodobadaas iyo kuwo kale u diyaar garooba goordhow idinkoo. Donald Trump ayaa soo dhigay qoraal bartiisa Truth Social-ka la yiraahdo, waxa uuna sheegay saxaafadduna ay soo xiganaysa markaas heshiiska ayaga iyo Iiraan u dhexeeya in la saxiixi doono berrito oo markaas Axad ah. In la saxiixi doono markaasna si degdeg dib loogu furi doono Strait of Hormuz, kaas oo ciidamada taliska dhexe ee bariga ciidamada taliska dhexe ee Mareykanka ay sheegeen dhowr maalmood ka hor gebi ahaanba inay iyagu gacanta ku hayaan. Halkaan idinkaga soo daynay xaatan waxa uu leeyahay waa in la furo, waxayna ku tusaysaa cidda markaas xaqiiqatan gacanta ku haysa Strait of Hormuz. Inkastoo ay jiraan maraakiib ka gudbaysay biyahaas, haddana Iiraan ayaa halkaa ka talisa. Si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in ay markaas saxiixi doonaan heshiiskaas maalinta Axadda ah. sidoo kalena wasiirada arrimaha dibadda dowladda dalka boqortooyada Sacuudiga iyo weliba dhigeeda Pakistan ayaa aad iyo aad arrintaa u soo dhaweeyay una riyaaqay markaas in arrintaanu ay noqon doonto midii markaas aasaaska u noqon lahayd nabad waarta iyo xasilooni gobolka guud ahaan Mareykanka iyo Iiraan halka ay ku kala dhamaadaan. Su-aasha isweydiinta la weyn daawadayaal waxay tahay u imaan doona goordhow yaa faa'iido ku qaba heshiiskan Mareykanka mise Iiraan, waxaana taa kasii muhiimsan yaa khasaaro ku qaba waynu u tegi doonaa. Haddaba daawadayaal wasiiradan ayaa iyaga laftigooda aad u soo dhaweeyay arrintaana bogaadiyey, waxaana muuqata inuu xaatan momentum uu dhismayo oo markaas ay jirto xiisad arrintan loogaga midho dhalinayo iyo juhdi fara badan la gelinayo. hase yeeshee wararka ka soo baxay dowladda dalka Iiraan ayaa lagu sheegay sida halkan idinkaga muuqata. Wakaaladda wararka Reutersna ay markaa tabinaysa ayay Iiraan sheegtay heshiiska afgaradka ee u dhexeeya Mareykanka iyo markaas dhigooda Iiraan in waqti loo qabtay haba yaraatee aysan jirinin oo cayiman. waqti loo qabtay oo cayiman uusan jirinin markaas ayay sheegeen, oo markaa arrinta Axadda Trump uu sheegayo iyo Iiraan halkaas inay ku kala duwan yihiin ayaa muuqata. laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Ismaaciil Baqaa'i asaga dhankiisu ma uusan rule out kuma samaynin ama ma uusan oranin wax kastoo dhaxa Axadda waxba saxiixi mayno, laakiin wuxuu sheegay waqti loo qabtay oo cayiman haba yaraatee inuusan jirinin. dhanka kale afhayeenka baarlamaanka dowladda dalka Iiraan Maxamed Qalibaf ayaa bartiisa qoraal uu soo dhigay ayuu waxa uu sheegay heshiiska iyo ballanqaadka la galo waa in sidiisa loo fuliyaa oo aan markaas lala meeraysan la xagaldaacinin, aysan noqonin mid markaas shaki iyo markaa la geliyo mugdi la geliyo haba yaraatee inaysan arrintaasu dhicinin ayuu yiri. oo waxaa muuqata inuu soo dhaweynayo laakiin haddana uu shaki ka qabo oo Iiraan Mareykanka marnaba ma aaminaysa. Mareykankuna waa ogyahay, sidaas awgeedna Mareykanku wuxuu ku khasban yahay ayaa leeyahay inuu tuso Iiraan in ay waxaanu ay dhabka yihiin. tillaabooyinka uu qaadayana uu ka dhameeyo. Iiraan hadal iyo warqad la saxiixa waxba kuma qaadanayso. Iiraan waxa keliya ay wax ku qaadanaysaa waxay tahay itus oo itaabsi. markaas ayay Iiraan dhaqaajinaysaa. inta ka horeysa haba yaraatee ma jirto
waxay iiraan aaminaysa. waa kan mar kale ra-iisul wasaaraha dalka bakistan oo asagoo ah ninka gogasha nabadda dhigay shahbaaz shariif waxa uuna sheegay heshiis maanta maalinay ka dhowdahay inaysan jirinin isla mar ahaantaasna soo gebagabayntiisii la rajaynayo 24 saac nagu soo socota oo warkii Donald Trump oo kala ah 24 saac. Donald Trump wuxuu yidhi axadda ayaa la saxiixayaa, ninkaana wuxuu leeyahay 24 saac 6 saac ka hor ayuu soo dhigay oo ku beegan markaa maalinta axadda ee berriteen nagu soo socota. meesha Iiraan ay leedahay arrintaas anagu ma xaqiijin karno. waayahay waxa uuna sheegay markaas in ay Pakistan ay diyaarinayso markaas electronic signature-kii signingkii ay diyaarinayso, isla mar ahaantaasna wiigga soo socda technocratkii ay loo diga roganayo oo G7 meetingkoodii ayaa soo socda oo markaa Donald Trump uu sheegay inuu wadamada Qatar, Masar iyo wadamo kale Sacuudiga uu ka mid yahay marka uu la kulmi doono oo arrintan looga hadli doono. qaybta dambe shahbaaz shariif wuxuu ammaan kala dullacayaa dowladda dalka Iiraan iyo dhigeeda markaas Maraykanka. laakiin waxaa muuqata in Maraykanka iyo Pakistan ay isku luqad ay ku hadlayaan oo wax u kala qarsoon haba yaraatee aysan jirinin. su-aasha weyne daawadayaal haddaba la isweydiinayo waxa ay tahay eebiya kama dhibcaanka yay dan ugugu jirtaa heshiiskan. waxaa xusid mudan daawadayaal wasiirka arrimaha dibadda dowladda dalka Iiraan Cabbaas Araachi waxa uu sheegay wax aan danta ummadda Iiraan iyo dalka aysan ku jirin oo aanu saxiixayno ama aynu qarsanay heshiis qarsoodi oo la gelino Maraykanka ma jirto. danteena haddii aan ka weyno albaabadan isugu dhufanaynaa, wax haba yaraatee nagaga lumayana ma jirto. intaas ayaan soo adkaysanay, sidaas awgeed heshiisaan saxiixaynaa ma jirto. dhinaca kale Iiraan iyo Maraykanku labaduba waxa ay rabaan in wax kastoo dhaca Hormuus la furo. Iiraan Maraykanka ayaa isbaaro u dhigtay badda oo maraakiibtoodii iyo dekadahoodii ayaa isgaarila, sidaas awgeed in laga qaado ayuu rabaa. Maraykankuna wuxuu rabaa cadaadiska dhaqaale caalamka ka haysta in markaas laga qaado iyo markaa kan gudaha dalkiisa ka haysta intaba, oo halkaas labadooduba heshiis ayay ka yihiin. laakiin waxaa jira shuruud ay Iiraan wadato. Cabbaas Araachi oo xalay la hadlay warbaahinta maxalliga ee dalka Iiraan waxa uu sheegay heshiiska inay ka mid tahay, dhegeyso hadda soo hadalka u dhigay, heshiiska inay ka mid tahay dagaalka Labnaan in lasoo gabagabeeyo iyo kan Gaza labadaba ee Falastiin ka socda, iyo inay Strait of Hormuz iyagu ay gacanta ku hayn doonaan, dib dambana aan loogu noqon dooninin wixii hore iyo xaaladdu siday ahayd. arrintaas Maraykanku afka wuxuu ka leeyahay ma ogolin, laakiin wararka hoose waxay leeyihiin Maraykanku ogolaasho maahane waa ku gowracan yahay inuu aqbalo, oo Iiraan juqraafiga ayaa u hiliyey iyo meesha ay degan tahay. marka Iiraan waxay ka qaadi doontaa waxay ugu yeertay markii hore canshuur maraakiibta halkaa maraysa, haatan waxay u bedeshay khidmo iyo adeegga loo fidinaya maraakiibta, kiyuga ay gelayaan, midka horgudbaya meesha ay marayaan iyo markaas isbaarada laga qaadayo ayaan khidmo oga qaadayna ayay leeyihiin. Maraykankuna objection weyn oo hadda uu ka keenay ma muuqato. haddii maraakiibta caalamku halkaa ay marayaan lacagta laga qaadayo wax ka badan ayay wadaan oo maciishadii caalamka ayaa isku soconaysa iyo shidaalkii. marka Iiraan halkaas waxay u aragtaa guul weyn inay uga soo heetay dagaalka oo laga joojiyo Labnaan iyo Falastiin. waxay u aragtaa marka koowaad inay kooxahay taageeraysay siyaasad ahaan iyo qadiyad ahaan bay u taageeraysay in ay dagaalkii kala qayb qaateen, gaar ahaan Xisbullah in dagaalkii laga joojiyey. dhinaca kalena wadamada islaamka iyo carabta Iiraan waxaa loo arkayaa dowlad awood leh oo markaa dowladdii dunida ugu weyneyd iyo saaxiibteedu waa Israa'iil markaas heshiiskaas la gashay in aan dagaalka la qaadanin ee la joojiyo oo qaramada midoobay la geenayo la saxiixi doono. arrimahaasu daawadayaal waxa ay sababeen Iiraan waxay u yeeleen sumcad iyo sharaf aysan markii hore aysan haysanin ayay u yeeleen, waxaana sabab u ayaa leeyahay weerarkii Iiraan lagu qaaday ee Maraykankii Israa'iil ay kusoo qaadeen. waxay malaynayeen wax ka duwan ayaa soo baxay. qodobka kale ee leeyahay Iiraan way ku guuleysatay waxay tahay wax allaaliya waxay ku saabsanaa nuclearkeeda iyo uranium stockpilekeeda haatan lagama wada hadlayo. waxaa laga hadlayaa waa is-afgarad ku meel gaar ah oo 60kii maalmood oo horey loo qabtay
ayaa halkaa laga sii wadayaa si aysan markaa u burburinin. sida oo kale iiraan waxay aaminsan tahay in dhowaan lagu soo duulayo dhinaca kale iyadoo wada xaajoodkan ay socdaan oo iiraan aad ayay u feejigan tahay. waa anagii muuqaalkii kan ka horreeyay kugu soo gudbinay in ay markaa miinooyin ku xirtay gebi ahaanba gaar ahaan kuwa ugu waaweyn xarumaha nuclearkeeda ay ku keydayso oo ay aaminsan tahay ciidamada baarashuudka ku duula in ay markaa doonayaan in ay kusoo yaacaan inay halkaas soo galaan oo iiraan uraniumkeeda la qaato. waayahay dhinaca kale khiyaarta sharaftii karaamada leh waxaa kaloo iyada laftigeeda xusin mudan iiraan in ay kasoo badbaaday 2 dagaal oo waaweyn oo lagu qaaday xaatana wadamadii gobolka gaar ahaan dowladda dalka imaaraadka carabta iyo qatar ba laleeyahay balaayiin lacaga ayay geeyeen. labadoodu waa iska fogeeyeen. hadda waxaynu arkaynaa maanta soo baxday in qatar 12 bilyan oo dollar ah ay markaa iiraan ay ku wareejinayso oo markaas 2 stage ah marba qayb loo soo dirayo oo iiraan markaas ay ku booga dhayanayso 12 bilyan. meesha dowladda dalka imaaraadka la sheegay in ay 20 bilyan sida Reuters ay qortay ay dowladda dalka iiraan ay farta ka saarayso 3 bilyanna horey loo geeyey. waxaana halkan ka soo baxay iiraan inay dhaqaale heshay, sumcad heshay, isolationka ay kasoo baxday, maraykankuna cunaqabataynta saaran uu ka qaadanayo, bal dhaqaalo fara badan oo laga hayo uu markaas iiraan ugu soo shubayo. marka dhinacaad ka eegtidba iiraan inkastoo la burburiyey, la weeraray, madaxdeedii ugu sarreysay la laayay, khubaradeedii sayniska iyo dhinaca nuclearka la laayay, in fara badan ay u nooshahay, khasaaro ba-an oo naf iyo maal ayaa iiraan gaaray. laakiin iiraan waa kasoo badbaaday. waxayna isku aragtaa dowlad markaa bariga dhexe laga haybaysto oo hegemony ah. meesha markii hore Israa'iil ay ahayd hegemony sida uu sheegay professorka caanka John Mearsheimer. marka iiraan hegemony kuma noqonayso 2 maalmood gudahooda, laakiin shaki waxaan ku jirinin wadamada golofku inay ka haybaysanayaan ayna doonayaan inay wanaag kula dhaqmaan. dowladda ka faa'iiday dagaalkan ee wax fara badan ka heshay waa dowladda iiraan. 1 2 waa dowladda dalka Sacuudiga oo baabulmandabna aan laga xiraynin, dhinaca kalena hormuus markaas ay u furan tahay. dowladaha ku gowracan iiraan in ay la heshiiyaan oo Sacuudigu wuxuu arki waayey number 1 waxa ka ah xaatana soo ruqaansado dhinaca iiraan usoo ruqaansaday waa dowladda dalka imaaraadka, inkastoo iyadu ay beenisay arrintaas. laakiin caddayn waxaa kugu filan ayaa leeyahay weeraradii u dambeeyey inaan imaaraadka uusan iiraan aysan duqaynin, laakiin Bahrain, Jordan iyo dalka Kuwait ay duqaynaysay. dhinaca kale Israa'iil waxaa laleeyahay inkastoo markii ugu horreysay Netanyahu uu 2 jeer ku guuleystay inuu iiraan ku duulo, 40 sano uu ku riyoonayey, isla mar ahaantaasna uu ku guuleystay maraykanku inuu ka qayb qaato dagaalkaas. haatan waxaa laleeyahay khasaaro fara badan ayaa soo gaaray oo dagaalkii oo aan hadafkiisii